madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku labisan dareeska ciidamada militariga ee Soomaaliya ayaa waxa uu kormeeray kuliyadii ciidamada ee Jaalasiyaad oo imika ay degan yihiin ciidamada AMISOM. kormeerka ayaa madaxweynaha waxa ku wehelinayay saraakiisha ciidamada oo ugu horeeyo abaanduulaha ciidamada xoogga iyadoona ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika Francisco Mandera uu ka codsaday shacabka inay taageeraan dadaalada madaxweynaha uu ku doonayo inuu dib ugu soo dhiso ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. abaanduulaha ciidamada xoogga oo qayb ka ahaa kormeerka madaxweynaha uu ku tagay kuliyadii ciidamada ee Jaalasiyaad isla markaasina goobta warbaahinta kula hadlay ayaa ka dhawaajiyay in loo baahan yahay in laga faa'iideysto saraakiisha da'da ah si ay u soo baxaan saraakiil firfircoon oo da'yar. maanta waxaa halkan kormeer u yimid madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo aad u daneynayay dib in kuliyadii loo dayactir weynna lagu sameeyo dibna loo soo xareeyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo saraakiil noqon doonta ciidamadan hogaamin doonta lagana faa'iideysto saraakiishii hore aqoontoodii waayeelka noqotay aqoontoodii looga faa'iideysto kuliyadan yaa maanta halkan soo kormeeray wuxuuna Cabdulqaadir Cumar Cabdullafiidka gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Somali Cable TV.